yeerayaa qofkii u hadlayay behalf of Oromia OLF Samia Osman. Welcome inshallah. واو mahadsanid assalaamu calaykum wallahi maanta inaan meesha imid aad baan ugu faraxsanahay aan ka qayb qaato walaalahay garaf Oromo ugu sharaxi maayo oo qorni warqad u baasi markaan dhamaysto warqadda ay hadlayuu baasi ta u horeysa maxaa isku keenay maxaa meeshana wada keenay maxaa isku keen xidhay maxaa noo dhaxeeya walaalnimadu dadku markay halgan ay ku jiraan waa walaalo dadku mar hal dhib marka haysato waa walaalo dhibtana haysata inaan ka tashanano waan ku qasbanahay shirka ka dhacay magaalada Norway October waan ka qayb qaatay PAFD halkaasaan joogay Shambari Ogaden OLF Sidama Gambela Benishangul halkaasaan joogay shantayaduba shir shan bari socday markaan fadhinay walla annagoo dhani markaan isfiirino ooyimayna wax kale ma jiro waayo hadda hal dulmi wada haysato dad hal gumaysi wada haysto dad dhibtoodu hal ay tahay dawo sideen ugu raadinaa dawada annagaa hayna dawadu waa maxay midnimo waaye shantayadan haddaan iskugu nimaadno dadku daadaadis wax laguma samayn karo midnima wax lagu samayn karaa gumaysiga maanta na haysto waa gumaysiga dawladaha galbeedka wax ka helo waaye milyan lacag u gurtaa milyanadan anagu nagu dilaa wax kale maaha milyanadan dalkaygu ku gataa dadkeenu ku dila soo falku maxay tahay waa inaan isku nimaadno dhibtan na haysata sidaan iskaga dhaqaajin karno markaan dhibtan aan falo samayno gumaysiga aan iska ridno haddaan doono aan isla noolaanayna haddaan rabnona referendum xor baanu nahay ka u horeysa dawladda maanta noqonaysa dawladda maanta dhibka bini aadanka 21st century-ga dawladda Tigray waxay maanta ay geysanayso adduun maanta geysanaya ma jiro waayo gumaysiga Ingiriiska iyo Faransiiska dalalka Afrika markay qaybsadeen dhibtay maanta iyagu hayaan naguma hayaan bisha October 12 November 12 ilaa maanta haddaad aragtiin gobolada Oromia wax ka socda arday qalin ku diraraysa diyaarad hubab ay reer Western ay siiyeen naxariis la'aan hooyo iyo ilmo dumar uur leh 7 bilood uur leh meedkaygaad arkaysaa soo muxuu kuu sheegayaa kan inuu cadowgaaga yahay naxariis kuuma lihi ama iska kay dhaqaaji ama aniga noolo waaye soo faladu waa inaan la dagaalamo front kuwa Westernka ee adaanka iyada dabada kuwa tanaha soo baxaan waayo annagu xuquuqdayada iyo xaqayaga waaye maqale maanu tagin Tigray maanu tagin you live in Ogaden I live in Oromia we have full right to fight for ourselves dad ma weydiinayno dad lama tashanayno dalkaasi maanta PFD waxa ugu mahadinaya hoggaanada ku qayb qaatay meesha dad badan oo brilliant ay maanta cadaalada dawladda Itoobiya ku haysata dadkeena markaan fadhiis anigu aad waan u caawin jilcisanahay waan ooyayay waayo waxa iga oohinaya imisa hooyo iyo maanta ilmaheegii waayaysa imisa dumar aan dambi lahayn oo xabiska intay sida doonaan u helaan bay ureynaya waad arkaysiin dhibtan haysa taasoo dhan baa iga oohinayay anigu dalkayga anoo 5 jiraan ka baxay waxaan ku koray Somaliland laakiin dalkayga Oromada jacaylka u leh iyo shacabka la guumeystay oo inaan isgarab joogo inaan garab taagnaad wax alla wax dib ii celinaya ma jiro waayo adduunka maanta aan ku noolnahay adduun internet waaye adduun Facebook waxa aad ku arkaysid waaye wax la qarin karaa ma jiro dawladda Itoobiya in kastay rabto inay wax qariso lama qarin karo 1993 ogaadeen wax ku dhacay waa la socday genocide-ka magaalada gaadhay hooyooyin ogaadeen say bariga ooyeen bay maanta hooyooyin Oromo ooyayaan maanta haddaad aragtid meel kasta dhiig baa daadsan maanta 4 jaamacadood iyo diyaarad ay ku duqeynayaan waxa maxaa keenay annagii baa kala daadsan Oromo ogaadeen Gambela annaga waqti siinay dadkan annaga 25 sano dariiq u furnay annagii baa kala qaybsanay annagii baa doolarna lagu gatay doolarna lagu gadanay ha joogsado dadkeena annagu annaga u nool xooga maanta isku yimiday
xoreynka dalka haddaan is agtaagno wax alla waxaan leenahay haddaan u dhiibno sanad nagama qaadayo dowladda Tigray maanta dhinac bay u socotaa dad arkaysiin dadka baarlamaanka u shaqeeya ay dowladda kelmada iyagu isticmaalayaan fiiriye kelmad ciyaal suuqa dariiqa maraya aan isticmaalay bay isticmaalayaan kuwani waa gangster waaye gangster ka yimid Tigray waaye inaan ku celino Tigray annaga inoo taala Mareykan kama sugayno inaan leeshin kama sugayno okay annaga waxana laga rabaa inaan sameeyno aan hooyo afar caruuraan ahay qof shaqaystaan ahay shaqadayda inta anagu aan cuno iyo inta caruurteed iyo kiradayda waxaan ahay lacagtayda dhan oo leefbaale waayo dal baa rabaa dadkaygiiba baaba'aya annagii oo dhan waa inaan asdhahno bini aadan baanahay ilaahay xor buu nagu xoreeyey maxaan gumaysi ugu jirnaa ma iyagaan ka aqoon laanahay ma iyagaan ka yarnahay ma iyagaan naga geesiisan ma aha reer galbeed baa geesi ka dhigay Tigraygu waa dadaan habeen aan socon karin habeenadan aan soo dhaafnay fiiriya waxa ka socda meesha laba arday 15 kooga dariiqa ka weecinaya geesinimo annagaale dalka annagaale xaq iyo xuquuq annagaale soo walaalahayga wallahi shaqo way baa noo taala shaqo culus baa noo taala haddana la dhaho anytime dagaal uu bilaabmaya marka dariiqa la furo annagu inaan isdiyaarino aan tegno waa inaan ka fikirno halgan wiil iyo dumar male halgan annagoo dhan buu xaq noo yahay Tigray inaan dilno xaq buu noo yahay Tigray waxay leeyihiin inaan gubno xaq buu noo yahay Tigray inaan meesha ka saarno xaq buu noo yahay iyagu inayna dilaan xalaal annagu markaan iyaga taabano xaraam miya annaga xalaal noota inaan iyaga dilno waa inaan adkaano waa inaan isgarab joogsano waa inaan tusno kuush wuxuu yahay waa inaan tusno oo in looma baahno aanu labadan bilood maalin maan ooyin maxaanan ooyin Oromo bad bay ku dhimatay 200 baa bad ku dhintay 200 baa maraakiib ka taasaa maqlaayay taasaa ooyayay maxay bad ugu dhimanayaan maxay dadkooda ugu dhiman laayeen iyo dalkooda oran jiray maanta markay dhintaan aniga waa maalintan xoroobay igu tahay waayo dhalinyaradii baa dhahay enough Tigray ima gumaysanaysid mana baxayo I will die for my land and for my people I am so proud for that student I am so proud that student to fight for their right thank you very much walaalahay shaqa adag baa noo taala hawlo adag baa noo yaala waa inaan ku heshiino waa inaan hadalno waa inaan isdiyaarino mahadsanideen